waxay noqotay Soomaaliya wadciga khaarijiga marka la eego meel kamid ah dunida meelaha nafaayaadka dunida lagu aaso sumaha dunida ka soo hadhiya qashinkeeda shirkadka maafiyaadka caalamiga meelaha ay u baac mushtargeeyaan ee markaas loogu aaso ama xeebahooda lagu daadiyo ama gobolada qaar ha lagu aaso waxay noqotay Soomaaliya meel hantideeda bad iyo bari iyo wuxuu doonaba ha noqdee suuga iyo booba lagu qaado wax la boobo oo xoog lagaga qaado oo maraakiib rarato iyo wax la xado oo suuga lagu xado loola dhaqmo waxay Soomaaliya joogtaa wadci taliska xaqiiqiga ee wadanka uu ka jira uu yahay isticmaalka marka laga yimaado NGO wax la yiraahdo ama NGO-yada caalamiga UNICEF UNICA waxa la sheegay uniga noqdaan ama NGO yar loo kale oo yana kuwa ka soo shaqeeya ha noqdaan wadciga mujtamaca caafimaadka tacliinta dhaqaalaha wax kasta waxa maamula hadii bakeri la rabo in kor loo qaado ka tuulada jooga waxay NGO-yada iroogu yeedha dabeetana NGO ba loo ibaraya waxa la waxa saan u baahanay waxa saan naga jabay waxa saan noqday waxa baasaan noqday dawladda xaqiiqiga ee ka jirta meesha waa NGO meesha doonto tag ee wadanka ka mid ah oo iyana hadaaftooda iska wata yani waxyaabaha NGO-ga markaad aragto qaabka u dhaqmaya waxa la odhanayaa polio carruurta laga talaalayo polio ba ka soo balbooliya aan dhamaanayn arag oo maalin walba 900 qof oo shaqaalihi galayaan shaqaalaha booliyada talaala ma taqaanaan waa kuwa hawdka ka yimi nin hawdka ka yimi oo maanta magaalada soo galay oo soo shaxataga ma ciidoonay madarkiisa barita inta loo xidhay marayro cadoon korasale waa $5 baan maalintii shaqaysanaya dadka talaalaya inahayga saaray yani mid ay baariyeyntu ka yimi wali meel caafimaad lagu hayo daayaan wali wax qorin caafimaadka kaalayaan waxna qorin waxna aqrinin oo inta marayro cad loo galiyay suurta xabaarsan oo le booliyaan talaalaya oo day miskiina inta loo tago oo laba caruur ka jirta ama laba kanaaca ka hayso ay leeyihiin kuwa caafimaadka kama soo dareero kuwa talaalo isna leh war kuwani waa caafimaad qabaan kuwa ba sakaraade mid kiniina ama mid asbiriina ama wuxuuniga siiyale ayna leeyahay may waxa ma sidna naga shaqadeedu waxa weeyaan kuwa caafimaadka qabaan talaalayna keen odayga ama galgalanaya ama carruurtii badgalgalanayso booliya laga talaalaya la leeyahay mashaariic la tantahi inteeda badan aanay wax faa'iido ku jirin waa jiraan jooyada mashruuc faa'iido leh مثلا EU do kale mashruuciya ay wadooyinka dib loo hagaajinayo waxa soo kale faa'iido leh waa jiraan laakiin waxaan ka warramayaa generally qaabka wax u socdaan ama wax uga jiraan waa mujtamac yani NGO-gaasi aqliyadiiba uu ka lumiyay oo dadku inay cid kale wax u qabato sugayaan xad buu gaaray dadku aalaamta dareemaysa ay tahay mujtamac mukhadara oo mukhadaraadka u isticmaala si غير caadiya oo markaad qaadka iyo waxa la isticmaalayo khamri xashiisha wuxuu dhamay Soomaaliya si public loo isticmaala khamra public loo isticmaala droga public loo isticmaala qaad ba public loo isticmaala aad u tiro badan ila xad laga naxo jooga waxa soo dhan oo dhibaba wadanka ka jira waa aalaam runtii la wada taaban karayo waxa laaliya wixii nidaam soo marayna waa fashileen nidaam baynu geystaba wax nidaam weego inoogu dambeeyo wadanka yimaada waxay ahaayeen maxaakamtii islaamiga ahayd runtii iyaguna ahaa tajribo bashariya tajribo bini aadam dadaalay inay wadciga hagaajiyaan dhalinyaro intooda badan khibrad idaariya aanay lahayn ama maamul aanu jirin waqti ku filan aan loo ogolaanin oo la siinin haddana wixii dadka kale oo dhamaynta isu tagaan ay xaqiijin kari waayeen xaqiijiyay oo ah in deganaanshiyo nabad laga helo wadanka intay ka talinayeen deganaanshiyo iyo nabad in laga helo taasina waxay daliil u tahay bulshadu waxa ay rumaysan tahay hadii la yiraahdo waa lagu dhaqaya qof daacadayna ku dhaqo
walow haba liito idaaradiisa iyo maamulkiisuna inay ka fiican tahay waxa la hayo oo dhan. bulshadu waa cala alcumuum bulsho muslima, mabda kale ay taqaanaa ma jirto, islaamnimo ay rumaysan tahay. islaamnimadu waa shayga xaqiiqiga ee waddanka jira haddaan la isin dhamarayn. tusaalaan idin siinaya, nin Soomaaliyeed baa nin gaadhi watay dabada qabsaday, dabeetana wuu ka dhacay, waxbaa ku dhacay. reerihii baa isu yimo, waxa la yidhi nin baa dee wax yeesheeye naga garbax. wuxuu yidhi niman yahow, sharcigaan ogolay, sharciga islaamka wuxuu idin siiyaan ogolay. reerkii way yaro faqfaqeeno waxay idhaahdeen wararna sharcigaa waxba ku weydaan. dabeetana waxay idhahdeen war nagu sharcigaas iskay jooge, dee dadku xeer buu lahaa, waxbaa lagu dhaqmi jiro, sibaa reeruhu wax u kala qaadan jireenoo dee gaadhi laga dhaca maanta inoogumay horreynin, intaasoo gaadho horabaa wax lagu soo noqdo, wakaase dee odayaalaan u saarraa kala garbaxno. ninkii wuxuu yidhi war anigu shareecadaan ogolay, sharci islaam wuxuu idin siiyaa baan idiin ogolahay. qoladii kalena waa iska soo taagta, waxay idhahdeen armaa meeshaa waxba ka weydaan, kiyaa ku dhaqmi jirteena reeruhu wax ku kala qaadan jireen hala maro. war miyaad diideen buu yidhi, imakoo shareecad diide ma ogelin baa la yidhaha, sidaa kalena wax ku kala qaadanaynaa. haddaad diideen tii kale aad doonaysaan taga. odayaalba halka loo saaro, dee waxa la yidhi xeerkii inoogu dambeeyey gaadhigii behblaayo markii ninkaasi uu ka dhacay, intaasaynu kala qaadanay, kaasaasaa la yidhi wakaa wixii baa la akhriyey. dabeetana xoolaa la yidhi soo bixi, waa ninkii intaasoo nabar buu qabaa, dee nabaradii waa in loo xaqaa. okay, saasaa garateenaha, soo xaqda buu yidhi nabarada. waxay idhahdeen waa qoomee, dee wadaad inoogu yeedho qoomaha eega, waa suga buu yidhi. wadaad iyo sharcigii way ninkii diiday, kaa isula iman maynee soo xaqda. Soomaaliya wax kale wax lagu xaqaa baa yaallaa. nabar markay noqoto dee wadaadunbaa loo yeedhaayo kitaabka u eego qoonta qiyaasa. reerkii jiq buu isku noqday. ninkanina wuxuu leeyahay ama markii hore shareeco aqbala, sharci wuxuuna kala siiyo ayaan ogolay. diide, haddaad diideen dee hay odhanina iminka wadaad u yeedhayo sharciye, waa diideene, waxaa ku xaqanaysaan ku xaqdo, wax kaloo wax lagu xaqaana ma jiro. yani waxaan uga jeedaa mahmaa la soo warwareego, haddana wuxuu qadiyadu fadhidaa uun lama hayo wax kale oo mujtamaca kale uu ku kala baxo. bulshadu waxay aaminsan tahay haddii lagu xukumo shariica, dad ka daacadina ay ku xukumaan oo ay ka dhab tahay shareecadaasi la fuliyo, walow yay yeelanin khibre idaariye kane waxay noogu filan wixii ay xaqiijiyeen maxaakiimta islaamiga ahi, oo aan oran karno runtii tajribo ilaa xaddin ma guulaysatay bay ahayd.